السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. wiil dhalinyaro ah oo darogeysta ah macsadana aad u sameyn jiray faaxsho walban la imaan jiray xataa gaari heer uu garaacay labadiisa waalid gacan uu qaaday mar walbana uu garaaci jiray ilaa ay la noolaan waayeen guriga ay deganaayeen barxadda uu lahaa ayay qol uga sameeyeen si ay isaga fogeeyaan qolkaas ayuu isaga jiri jiray darogadiisana ku isticmaali jiray afar wiil oo saalixiin ah ayaa waxay ku ballameen inay wiilka u tagaan oo naseexeeyaan inuu ilaahay waxaas ka saaro jalla jalaaluhu way u imaadeen isaga oo cabsan sarkhaanna ah way la hadleen laakiin ma uusan dareemeynin xogaha ayay u sugeen inta uu ka soo miirsanayo markii in yar uu soo miirsaday ayay u bilaabeen inay waaninayaan kuna dhahayaan ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala waxay uga sheekeeyeen naxariista alle waxay uga sheekeeyeen jannada iyo naarta waa uu ooyey wuxuuna ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay hadalkan oo kale weligii ma aana maqlin waxaan doonayaa in aanan idinka harin idinka oo idinla jiro afartan wiil oo saalixiinta waxay u socdeen safar magaalada banaankeeda ah waana ay kaxeeyeen waxay tageen meel masaajidkii markay tageen ayuu wiilka toobadiisa iclaamiyey laakiin waxaa aad u dhibaysay jirka darogada ku jirtay darogadaas ayuu aad ula xanuunsanayay muddo xataa xilli habeen waa uu ku qeyliyey wuxuu ku yidhi xirxira waxaan ka cabsanaya inaan baxo oo darogo aan raadsado waxay dheen nakeen isbitaalka aan ku geyne laakiin wuu ku adkaysaday inay xiraan ilaa markii dambe ay xireen xarig ayayna ku wareejiyeen xarigga markii lagu xiray xogahay markuu joogay xarigga ayuu iska furay laakiin wuu iska ooyey maxaa yeelay darogadan wuu u baahnaa jirkiisaa rabay asagana ma uusan u baahnayn wiilkaas dhallinyarada ah muddo ayuu la xanuunsanaa darogadaas xataa heer uu la ooyay ayuu gaari jiray laakiin alla subxaanahu watacaala markuu arkay ninkan toobadiisa inay ka dhabtahay waa uga raaxayay arrintaas dhakhtar ayay u geeyeen dhakhtarkii markuu u baara wuxuu yidhi macquul ma ahan ninkaa inuu darogo isticmaali jiray weligiis ninkan waa uu toobad keena ilaahayna dadka toobad keena waa u dhaafaa humma ina rabbaka liladiina camiluu suu'a bijahaalah humma taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu ina rabbaka min bacdiha lagafuurun raxiim rabbigaaga kuwa camilu suu'a xumaanta camal falay bijahaalatin ayagoo ka jaahila inta ka bacdina ka toobad keeno ka soo noqday xumaantaas camalkoodana hagaajiyey rabbigaaga toobadaas ka bacdi waa alla u dhaafayo u naxariisanayo wiilka dhallinyarada 3 bilood ayuu ka maqnaa waalidiintiisa ma aysan tabin maxaa yeelay way ka raaxaysteen waxay u maleeyeen in la xiray mise xadiida uu ku dhintay 3 bilood ka bacdi ayuu go'aansaday inuu soo baxo guriga waalidiintiisa ayuu yimid hooyadii ayaana ka furtay aad ayay ugu farxday markay aragtay wiilkeedii oo qurux soo siyaadsaday hooyadiis ayuu dhunkaday wuxuuna ku yidhi hooyo isaamax oo iska kay cafi hooyadii madax ayuu ka dhunkaday hab ayuu siiyey cafisna waa uu ka dalbaday way cafisay xoogaa ka bacdi ayuu ku yidhi hooyo waxaan doonayaa cunto adiga gacantaada ku samaysid hooyadii way ku faraxday wayna ka aqbashay salaad ayuu galay waa u takbiirsaday wuu rukuucay wuu sujuuday sujuudda ayuu dheereeyey hooyadiin raashinka ay la kor taagan tahay wiilkii sujuuddii ayuu sii dheereeyey waa uu ka bixi waayey sujuuddii ayuu aad ugu jir ilaa uu ka geeriyooday hooyadii siday u sugaysay waxay ogaatay wiilkeeda in uu geeriyooday isaga u sujuudsan waxaa isku soo baxay dariskii way yimaadeen waxay arkeen wiilkii dhallinyarada ahaa oo xumaanta fisqiga meeshii ugu xumeed ka gaaray waalidkiisa u gacan qaadi jiray isaga oo maanta geeriyooday isaga oo sujuudsan markii la fatashay jeebkiisii waxaa ka soo baxday warqad dardaaran ah warqadda dardaaranka ah waxaa ku qoran haddaan dhinto karfanta hooyaday ha ii tosho aabbahayna ha i duugo meydkaygana ha qaadaan wiilashii dhallinyarada ah ee xumaantii ugu ogaan jiray si ayagana ay u toobad keenaan xumaantaasna ay uga baxaan walaal haddaa qisadan ka heshay ay ku cajab gelisay muuqaalka like saar subscribe leh ku xirnaa mar walba afmaal studio si aa u heshay qisooyin yaab leh mahadsanid